يا معهدا علمني وبالهدى جملني حليتني من صغري بكل خلق حسن كم فيك من معلم بعلمه زودني بعطفه ولطفه ونصحه أرشدني. munaasabad lagu xuseeyey 21 Novembar oo ah maalinka macallimiinta Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay Baxdo School oo ah iskuulka ugu weyn degmada Baxdo. munaasabadani oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka iyo macallimiinta iskuulka ayaa ahayd mid la isku xasuusinayay ama la isku tusinayay kaalinta mug iyo miisaanka leh oo ay macallimiinta aga jiraan horumarka bulshada. dowladda kacaanka ee Jaale Maxamed Siyaad Bare ayaa 21 Novembar 1974 oo ah 47 sano ka hor maalinkani u aqoonsatay maalinka macallimiinta Soomaaliyeed waxaana maanta laga xusayaa degmooyin badan oo ka tirsan dalka oo ay Baxdo ka mid tahay. ardayda iskuulka ayaa dhankooda munaasabada kaga qayb qaatay geeraaro gabayo iyo nashiidooyin lagu luqeynayo luqadda carabiga ah kuwaas ay ku muujinayaan siday u fahamsan yihiin abaalka iyo kaalinta muhiimka ah ay macallimiinta kaga sugan yihiin bulshada dhexdeeda. معلمنا 8 ساقق علم خطأ خط وإسراع 8 ساقق علم خطأ خط وإسراع معلمنا dhanka kale macallimiinta Baxdo School oo ardayda la hadlayay ayaa ka sheekeeyay macnaha macallintinimada iyo kaalintiisa waxayna tilmaameen in macallintinimadu ay tahay shaqo adag balse iyagu ujeedkoodu yahay soo saaridda bulsho tayo iyo garaad leh. waagii hore dugsiga hoose dhexe eedaadka ardayda ka qalin jabiso waxay ahaan jireen arday macallimiin ah waxa la jiray macallin bibi maxaa laga soo gaabay primary program ardayga eedaadka duu ka qalin jabiyo wuxuu noqon karaa nin macallin ah wax inuu dhigi karo wixii la soo baray uu gudbin kara la rabaa waxa kale oo la rabaa intee ka soo baxaan horta xagee ka yimaadaan macallimiinta xagee ka yimaadaan waxay ka yimaadaan iskuulka dhaqaatiirta xagee ka yimaadaan macallimiinta yani muhandisiinta maahirka iyo dhaqaatiirta iyo diblomaasi sharaf mudan dhammaan macallimiinta soo wada mareen marka taariikhda macallinka wax saacado lagu soo koobi kara ma aha. 1974 bishii November taariikh 21 ayaa loo aqoonsaday maalintan macallinka waxaana shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda militariga ahayd ay si wada jir ah u muujin jireen muhiimadda uu macallinku leeyahay. macallinku waa mashiinka kaliya ee soo saara injineerada dhaqaatiirta duuliyaha iyo qof kastoo xirfad leh ee koonkan dushiisa saaran sidaad ogtiinba ka arday ahaan ardayda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa looga baahan yahay xushmadda ixtiraamka uu leeyahay macallinka in la siiyo waxyaabo badan oo maanta aan macno saas weyn aan lahayn ayaa la xusaa oo mataqaanaa munaasabada waaweyn loo dhigaa marka macallinka waa qofka koowaad ama qofka number 1 ugu jira in wanaagaas ixtiraamkaas iyo waxyaabaha dhammaantood loo muujiyo. waa ka nabigu leh inna allaha wa malaa'ikatahu wa ahla samaawaati wal ard wa hatta namlata fi hujriha wal hud yusalluna muallim an-nas al khair waxa nabigu yiri ilaahay iyo malaa'iktiisa samaawaadka makhluuqa ku jira midka dhulka jooga hatta quraanyada godkeeda ku jirta حتى ملاقة بدأ كجرة وحيودوا عينيان قف كذا غير كبره إلهي معناها وأنا حريصا ملايكته يسكتن بدافع ويدين مخلوق لما ويودوا عين تاسى النبي قلت المام عليه الصلاة والسلام قرآن يده ويودوا عين ملاقة ويودوا عين ملايكته ويودوا عين إلهي وأنا حريصا والرحمة يا غير هذا بحق سكهليا عبد الواحد أحمد حاشي وربهنت CBA Baxdo.